السلام عليكم. ما شاء الله. تازيني. يقول راسي. ليه وسهلا. ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa soo gaaray magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug si uu u dardargeliyo qorshaha dhismaha Galmudug loo dhan yahay ee hormuudka u yahay wasiirka ka tirsan xukuumadda oo ay ka mid yihiin wasiirka arrimaha gudaha, wasiirka amniga gudaha, xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya, madaxa fulinta Galmudug, saraakiil ciidan iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee Ugaas Nuur. dadkii soo dhaweeyay ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa u muujiyay sida ay ugu faraxsan yihiin imaatinkiisa iyagoo uga mahad celinayay dadaalkii waqtiga dheer ee uu geliyay dhismaha Galmudug loo dhan yahay oo dhameystiran waxayna halkudhig u dhigeen borarka ay ku soo dhaweeyeen mideeye. wasiirka arrimaha gudaha federaalka ee dib u heshiisiinta Cabdi Maxamed Sabriyo oo warbaahinta la hadlay ayaa sharaxaad ka bixiyay ujeedka safarka ra-iisul wasaaraha ee magaalada Dhuusamareeb waxa uu sheegay in ra-iisul wasaaruhu uu furi doono shirka dib u heshiisiinta Galmudug si talooyinka ka imaanaya dadka shirkaasi ka qayb galaya loogu biiriyo dhismaha Galmudug loo dhan yahay. socodkiisa ujeedadiisuna waa in hore loo wado hanaankii dib u heshiisiinta oo ergooyinkii oo dhan ay ku soo urureen magaalada Dhuusamareeb shirkuna furmi doono maalinka Arbacada oo ay tahay bisha 4 shirkaas oo ujeedadiisu tahay in beelaha Galmudug ay uga wada hadlaan sida ay hore ugu socon lahaayeen ugu heshiin lahaayeen laba daraadle ay ugu heshiin lahaayeen inay dhistaan dowlad goboleed danahooda horumar amnigooda iyo wax walbo ay uga baahan yihiin nidaam dowladeed u qabata marka ra-iisul wasaaruhu berrina wuxuu geli doonaa shirar kala duwan oo uu la geli doono wufuudda halkan u timid shirka dib u heshiisiinta maalinka Arbacadana wuxuu furi doonaa shirka dib u heshiisiintu si rasmi u furi doonaa ilaahay waxaan ka rajaynaynaa hawshii wanaagsanayd oo meel dhalka noqotay oo hadda ka hor uu ka qabtay magaaladan muddadii 40 cisho ka badnayd oo hadda ka hor joogay tiyo kale iyo tukasi najaax badan in halkan ilaahay kala kulmiyaan rajaynaynaa annagu intuu maqnaa waa joognay waxaan ka shaqaynaynay isla hanaankaas hadda oo uu nagu soo beerayna waxaan rajaynaynaa inuu nagu soo kordhiyo dhiig cusub iyo dardar. ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre oo ay socdaalkiisa Dhuusamareeb uu qayb ka yahay qorshaha dhameystirka dadaalada lagu horumarinayo Galmudug loo dhan yahay oo dhameystiran ayaa furaya shirweynaha dib u heshiisiinta Galmudug oo reer Galmudug ay uga tashanayaan aayahooda si dib loogu dhiso hay'adaha dowlad goboleedka Galmudug oo loo dhan yahay kana madax bannaan khilaafaad. Nasr Bashiir Cali warbaahinta qaranka magaalada Dhuusamareeb.